السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين walaalayaal soo dhawaada maanta muuqaalkan waxaynu kula wadaagayaa ganacsi $1,000 ama ka yar lagu bilaabi karo oo aan ku soo arkay wadanka Masar saad ogtihiin hadda ka hor Malaysia markaan dhowr bilood ka hor tagay meherad sharaabka lagu gado ayaan halkan kanaalkan in kula wadaagay sidoo kale waxaan jeclahay qurbaha ama wadamada kala duwan markaan marayo inaan bulshada Soomaaliyeed meheradaha lacagta yar lagu furi karo oo kale ee dadka dhalinyarada ah ama dadka dakhligoodu kooban yahay ay ka faa'iideysan karaan in halkan aan bulshada Soomaaliyeed kula soo wadaago maanta hadda waxaan la wadaagayaa anoo habeen dhexdaas maraya Cornishka ama wabiga Niil qaybaha loo dalxiis tago meherad yar oo aad dalxiisayaashu ay uga iibsanayeen cunooyinka fudud oo Sacuudiyaanka Khaliijiyiinta Carabta wadamada kala duwan ka timi dalxiisayaashu ay line dheer ugu jireen oo markaa aan ka soo gatay mid ka mid ah adeegyada bixinaysay inaan halkan idin kula wadaago oo qalabkeeda aan isleeyahay $200 marka decorationka laga reebo ayaa lagu furan karaa meheradani hadaba walaalayaal waa meherad gada jibista noocyadeeda kala duwan oo qaab xirfadaysan u iibinaysa xaqiiqatan oo kala duwan lacag fiicanna ay habeenkii ay ka sameynayeen hadaba meheradan waxaan la wadaagayaa qalabadeeda iyo waxyaalaha soo iibsanaysid ka bulshada Soomaaliyeed ahaan gaar ahaan dadka degan magaalooyinka xeebaha ah ee loo dalxiis tago magaalooyinka caasimadaha isgoysyada meelaha bulshadu ku badan yihiin oo dhan ayaa qaabkan meheradan oo kale u hirgelin kara intana gudagalin waxaan jeclaan lahaa marka koowaad inaad like saartid si uu dad badan u sii gaaro hadda walaalayaal waxaan toos u gudagalaynaa qalabka koowaad ee meheradan waxyaalaha ay gado qofkii raba inuu sameeyo uu soo gadanayo qalabka koowaad walaalayaal waxaan oran karnaa waxa aas u ah meheradani waxay iibisaa baradhada noocyadeeda kala duwan ee la shiilo marka waxaad u iibsanaysaa mashiinka wax lagu shiilo mashiinkaasi walaalayaal marka internetka aad ku qoraysid waxaad ku qoraysaa LPG deep fryer ama commercial deep fryer ayaad ku qoraysaa oo ah mashiin maadaama korontadu ama leydhku wadankeena qaali ka yahay gaasta wax ku shiila oo baradhada digaaga waxyaalo kala duwan ku shiila ayaa suuqa Amazon ee Dubai oo kale ama Turkiga ama China ama hadda meesha ka soo gadanaysid oo kale waxaad ku qoraysaa LPG deep fryer mashiinka wax ku shiila gaasta marka mashiinkaasi waa mashiinka koowaad ee baradhada ku shiilaya mashiinka labaad ee walaalayaal aad soo gadanaysid isagana qiimihiisu macquul yahay jaban yahay $150 $100 meelaha la siiyo waa price cutter ama chips cutter labadaba waa la dhahaa commercial chips cutter waa machine baradhada u jarjaraya habka chipsta oo kale oo halkii marka la diiraba isla markiiba jag baradhadii sida chipsta loogu jarayo 10 kiilo 20 kiilo 30 kiilo oo kale chips ka dhigaya waxyaalaha meheradan aad ka looga gadanayay ee chipsta ugu badan ee dadka dalxiisayaasha gadanayeen xaqiiqatan waxay ahayd chips sida giraanta oo kale iyadoo spiral la dhaho spiral chips la potato la dhaho oo sida giraanta oo kale loo jarjarayo oo la kala bixinayo la shiilayo ayaa aad looga gadanayay oo lagu dul yaacinayay ketchupta ama se yacni mayonnaise-ka iyo soosaska kala duwan haddaba isagana waxaad u soo iibsanaysaa mashiin la dhaho spiral potato cutter ama spiral chips cutter isagoo electric ah iyo isagoo manual ba suuqyada online ku way gadaan isaga laftirkiisa $200 $180 $250 meelahaas ayaad ku heli kartaa waa wuxuu ku jarayaa nooc ka mid ah chipsta oo giraan oo kala ah sida taayirka oo kale isdaba taala marka spiral potato cutter baa la dhahaa oo mashiinka saddexaad ee meheradan oo kale aad u gadanaysid waxyaalaha aan ku arkay cajiibka ah ee dadka soo jiidanaya dalxiisayaasha ama wadada maraya oo kale waa caagag laga buuxiyay kajabyadii iyo soosaskii kala duwanaa ee lagu macaaninayay chipsta marka soosaskaas waxaa lagu shubayaa mid mayonnaise baa ku jira mid ketchup baa ku jira mid BBQ sauce baa ku jira mid burger sauce baa ku jira mid intaas oo soosas oo kala duwan oo baa ku jira oo baradhada qofka loogu yaacinayo markuu gato magaciisa isagana waxaa la dhahaa
plastic hanging sauce dispenser baa la dhahaa, ama caagii balastiga ahaa ee soo lushay ee sooska laga shubayay. isagana waa sad hadda ka aragtaan aan hadda ku qoreeya Amazon oo kale, plastic hanging sauce dispenser baa la dhahaa. isagana waa bahalkaas looga daadinayo chibista korkeeda sooska looga daadinayo, kaana waa soo iibsanaysaa. intaasoo qalab walaalayaal markaad soo gadateen waxaad kala soo iibsanaysaan shabcad ama baaquli weyn oo baradhada marka la shiilo isla markiiba xawaashiyada iyo ama milixda ayaa lagu rogrogayaa oo waxaa laga dhigayaa dhanaan, dhadhan udgoon oo dhanaan ayaa loo samaynayaa. kabacdi waxay arkayaan, waxay garaacayaan baradhadii oo shiilan bay xawaashiyadaas ayay ku rogrogayaan, amase milixda oo kale ayay ku rogrogayaan. kabacdi dhanaan yar ayay baradhadii markaa yeelanaysaa. hadda walaalayaal meeshaas chibista iyadoo yani takeaway yar ku jirta oo $1 iyo bara, iyadoo mid weyn ku jirta oo size weyn ah oo $2, iyadoo noocyo kale ah oo marka qaarkood lagu sii darayo chibistii oo cheese ama farmaajo oo kale dhakada lagaga sii daray ayay gaar u gadaan oo $3. waxay sidoo kale gaar u sii iibiyaan chibistii baradhadii oo markaa crispies waxaan loo yaqaano ama noocyada kale chibista qallalan ee bacda ku jirta la sii kor saaray oo markaa lagu sii shubay soosas kala duwan, iyaduna ay dadku jeclaayeen ayay gedayeen. marka intaas oo menu oo kala duwan, iyadoo cheese leh, iyadoo chips kale la kor saaray, iyadoo chibista caadiga ah frieska ah, french frieska ah, iyadoo markaa dhowr nooc chibistii loo kala sameeyey oo yacni la dalbanayo ayay meesha ku dhex sameynayeen. marka wadamo badan ayaa jirta, potato mesh wadanka Kuwait oo kale company la dhahayaa jira. wadamada carabta aad ugu badan tahay. xaqiiqatan 4 qalab 5 qalab kaliya ayaad u soo iibsanaysaa. kasakari ahaan anigu qalabkan ma iibiyo oo ma gado, waxaan rabaa inaan baraarujiyo dadku in badan ayay mashiino dhahaan sakariyo mashiinada aad sheegaysay naga iibi. ma iibiyo, laakiin si walaalnimo ah ayaan kala soo wadaagayaa. marka waxaad ka dalban kartaan shirkadaha elektroniga waaweyn baa idin dalbi kara, ama China ama Dubai, ama qof ama China Dubai jooga ayaad u dirsan kartaan oo idin keeni kara. anigu waan ku xiri karaa dad idin soo iibiya, laakiin waa wax waqti iyo dhaqaale iyo hawl badan ay galayso in alaabtii la soo iibiyo, dekadii la geeyo, la soo raro, waqti badan bay galaysaa. marka qof iga chance fiican ayaan jeclahay in insha Allah aad u dirsataan. inta marka walaalayaal marka laga yimaado waa ganacsi yar oo fudud oo xeebta Liido, xeebta Boosaaso, ta Berbera, ta Djibouti aad dhigan kartid, ama iskuusyada waaweyn ee magaalooyinka aad ku sii iibin kartid. insha Allah walaalayaal waxaan siri dhalinyarada ama dadka dakhligoodu kooban yahay ganacsi yar oo macmacaan oo 2025 $1 ka yar ay ku bilaabi karaan, sida business kan oo kale la wadaag. ganacsiyadaas oo kale waxaa la sameeyaa social media sida TikTok, Instagram, Facebook ayaa aad looga duubaa. hay'aysiis badan baa lagu sameeyaa, dhalinyarada aad ku soo aadaysa. talaagada hadhow taxta talaagadii ay ku dari kartaa oo sharaabaha fudfudud oo kale ayaad ku sii agadi kartaa. shawarma yar ayaad diyaarin kartaa, ama chicken sandwich ama tuna sandwich yar oo kale inta dhala soo gelisid, ama sambuus oo kale ayaad xataa ku sii dhinac gadi kartaa. waxyaalo badan ayaad ganacsiga yar ku sii dhex iibin kartaa. waana ganacsi yar oo maalintii $10, $50, $100 oo faa'iido hadba saa u dadaashid kuu soo saari kara. oo haddii aad wax ka bedeshid chibistii hore la gedi jiray oo soosas badan oo kala duwan lagu darsanayo, xawaashyo kala duwan leh, qaar cheese ay leedahay, qaar hilib lagu yaacay, qaar maxay ahayd crispies kale korka laga sii saaray, noocyadaas oo dhan aad samaysid oo si fiican TikTok iyo Instagram aad ugu xayeysiisid, shaqo abuur ayay u noqon kartaa qof dhalinyaro ah oo xaafadda ama familka ka tirsan, ama adaa maalgashan karo oo shaqaale u dhiiban kara. marka insha Allah walaalayaal mashiinadaas Amazon, suuq Amazon ee Dubai waad ka heli kartaa. Turkiga oo kale waa idin ka soo iibin karnaa. marka insha Allah walaalayaal waxaan rajaynayaa inaad dalbataan fikradan aad ka faa'iideysataan $1,000 ka qiimo jaban. maanta dadka ganacsiga magaalada jecel ayaan fikradan la wadaagayay oo ayaamahan aan ka hadlaynay fikradaha xoolaha iyo beeraha ku saabsanaa ayaan idinku bedelay tan. inta insha Allah muuqaal xiga ku kulmi doono walaalkiin Sakariya Cabdilaahi Cali. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.